axkaamta soomku isma beddesho. isla iyadii sanadaha hore la soo akhriyey, la soo sheegay, la soo dhegaystay, isla ayadii axkaamtii lafteedii weeye oo axkaam cusub iyo masaa'il cusub ma aha. muhiimadda ugu weyn waa isxasuusin iyo qof qaybi ka hoos baxday in lagu baraarujiyo. ma ahan inta badani baris cusub ma ahan oo wax badan in la faahfaahiyo oo wax badan adilo loo sheego u baahan ma aha. cashirkeenna koobaadi wuxuu ku saabsanaan doonaa laba arrimood. arrinta koobaadi wuxuu ku saabsanaan doontaa soo gelitaanka bisha ramadaan iyo sida lagu ogaan karo in bishii bilaabatay. qaybta labaadna wuxuu ku saabsanaan doonaa dadka ay bisha ramadaan soonkeedu waajibka ku yahay inaan sheegno ama aan qeexno. qaybta koobaad, bisha soo gelitaankeedu waxaan uga hadlaynaay wuxuu waajibaa bishu markay soo gasho. soomkan waajibkiihi ilaahay baa yidhi faman shahida minkum ashahra falyasum. qofka idin ka mid ahoo bishaa jooga gaara ay u soo gasho ha soomo. marka soo gelitaankeedii ayay ka bilaabataa ugu muhiimsan horta in meel la saara see lagu ogaanaya. haddaynu su-aashaa ka jawaabno sidee baa lagu ogaan karaa ama sharcigu ugu talagalay in lagu ogaado soo gelitaanka bisha ramadaan, waxaan leenahay dhammaan bilaha islaamka ah ee 12 ah dayaxana ku xiran waxaa lagu ogaadaa laba midkood. bishii hore 30 ay ku dhammaato, 31 ma laha bilaha islaamku. bishani 30 hadday dhammaysato shacbaan ama sidoo kale ramadaanka laftiisu 30 uu dhammaysto ama bishii rajabee hore ay 30 dhammaysatay, maalinka 30ka xigaayi waa kowdii bishii kale wa. uma baahna aragti, umana baahna dayday haddaan bishu inay dhammaatay muran ka jirin. saa darteed qodobka koobaad waxaa lagu ogaadaa in bishu 30keedu dhammaado. qodobka labaad waxaa lagu ogaadaa in habeenka 30aad bishii kaloo bilatay la arko oo ay bishii dhalato. labada arrimood buu nabigu ururiyey sala allahu alayh alih wasalam oo uu yidhi suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi. ku sooma aragtida bisha kuna afura aragtida bisha. bisha haddii la arko tii hor kale 30keedii 28 iyo 29ka ta kale lama raadiyo bishu 29 kama yara 30na kama badna. waxa aragtida u baahan waa habeenka 30aad oo yowmu shakiga la yidhaahda way. haddii aad aragti ku sooma aragtina bisha aakhirkeeda ku afura. fain gumma calaykum hadday laydinka qaryood arki kari weydaan habeenkii 30aad in bishii kala dhalatay faakmiluu ciddata shacbaana 30. bisha shacbaan tiradeeda 30 buuxiyoo dhammaystira. haddaad dhammaystirnaana bisha shacbaan waa dhammaatay, ramadaankii baa soo galay. saas darteed haddii habeenka 30aad la arko waa lagu soomayaa. haddii habeenka 30aad la arki waayo 30kaa la dhammaystirayaa kadibna waa la soomayaa.
taasi waa qaybta koobaad ee sugiritaanka iyo sugnaanshaha bisha ramadaana. qaybta labaadi waa qaybta xigtee ah soonku yuu ku waajibaa, soonku yuu ku waajibaa oy waajib ku tahay inay soomaan. markii ereyga aynu nidhaahno soonku yuu ku waajibaa inuu soomo, yuu ku waajibaa baynu laba macno u kala qaadaynaa. waajib guud iyo waajib hadda oo gaara. dadna si guud ha ugu waajibo, laakiin hadda inay soomaan waajib kuma aha, laakiin bedelkii baa laga doonayaa oo waajiba. dadna hadduu waajib ku yahay inayba soomaan. waajibka guud waa qofkii dhowrka tilmaamood ee soo socda laga helo. kow waa inuu muslim yahay, laba waa inuu qaangaar yahay, saddex waa inuu caqli iyo garasho leeyahay, afar waa inuu awoodo, qof awooda oo soomi kara waa inuu yahay. saddex afartaasi waa waajibka guud qofkii laga helo. waa inuu muslim yahay. markaan nidhaa qof aan muslim ahayn soon lama faro, waajib buu kugu yahayna lama dhaho. wuu kuu shaqayn karaa, guriguu joogi karaa, ganacsi baa idinka dhexayn kara, shirkad buu kaaga shaqayn karaa, qaraabaad noqon kartaan. qofka gaalka ihi soonkaa waajib kugu ah lama dhaho. haddana lama yidhaahdo soon lama yidhaah. hadduu soo islaamana qalee lama yidhaahdo. kalaa waxaan waa inuu qaangaar yahay. carruurtaan weli qaangaadhin soonku waajib kuma aha. xataa hadday garasho leeyihiin oy soomaan way fiican tahay, laakiin hadda waajib baan ka hadlaynaaye ilaa ay qaan gaadhaan waajib kuma aha. hadday ka tagaanna soo qallaya la dhihi maayo. caqli inuu leeyahay markaan leenahay waxaan uga jeednaa qof maskaxdiisu iyo garashadiisu ay joogto waa inuu yahay. usan caqli lahayn waa ilmo yar oon kala garasho gaadhin, waa qof waalan, waa qof waa yeelay oo caqligii tegey. sababtaa waalidii iyo caqliga tegey sabab kastaba ha keentee usan caqliba jirin waxba waajib kuma aha. waa inuu awoodo. markaan leenahay qofkaan awoodin haddana awoodin baan u jeednaa dibna aan ka awoodin. da-da waayeelka ah iyo duruufo xanuun qof qaba oo inuu ka darsado maahane inuu ka soo doogo ama ka soo reeyo aan inta la garanaya rajo laga qabin. dadkaasi waxa uu soomba waajib kuma aha. mid fidyo bixiye midaan bixinba soonku waajib kuma aha. qayb labaadoo waxaa jirta dadka si guud waajib buu ugu yahay, laakiin hadda waajib kuma aha markay soo gashay bishaa inay soomaan. waynay soomi karaan hadday awoodaan. kow waxaa ka ah qofka musaafirka ah. qofka musaafirka waa soomi karaa, waana afuri karaa. hadduu afuro waynu u tegi doonaa. waa qofka mariidka ee xanuunsan. waxaanan uga jeednaa xanuunka inta badan laga caafimaado, laakiin xilliga uu soonka ku soo aaday ee la falgalay uu soonka qofka dhibayo ama uba diidayo. isna si guud waajib buu ugu yahay iyo qadihiisu saan arki doono, laakiin bisha hadda xilligaa duruufta ay haysata waajib kuma aha inuu fuliyo. waxaa ka mid a gabadha caadada qabta iyo midda umusha ah. labadaa midna hadda inay soomaan waajib kuma aha. waajibka guudba ha lagu lahaadee. waxaa ka mid a gabadha nuujinaysa iyo midda uurka leh ee ilmaha caloosha ku sida ee uu soonku dhibayo
iyagana hadda inay ku soomaan oy arrinta duruuftaa la soomaan waajibku ma aha. waxa kale laga rabana dib baynu ka arki doonaa cashirada dambe. inahaasina waa inta ugu muhiimsan dadka uu waajib ku yahayoo laba qaybooda. shuruud laba maarmaana si uu asalkiisu u waajibo iyo shuruud loo baahan yahay si uu hadda fulintiisu u waajibto. labada waa arkaysaa culimmadu qolyo kala saariyo in isku darta labada waa leeyihi. intaasna waa qodobkii labaad ee xalqadeennan iyo cashirkeennan aynu ugu talagalnay inaan ku soo gudbinno oo ahayd guud ahaan labadaa qodob bisha soo gelitaankeedu sidee bay ku sugnaataa iyo bishan ramadaan soonkeedu iyuu waajib ku yahay. ilaa xalqadda dambe iyo cashirka labaad oo aan kaga hadli doono soomku siduu ku asaxo, waxyaabaha jebiya iyo waxyaaba la xiriira oo kale. waxaan kaga tegaynaa si ay nabadgeliyo. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.